waa mas'uuliyiin uu horkacayo gudoomiyaha degmada Kaxda iyo gudoomiyaha waaxda koowaad ee degmada Maxamed Jeelaani waxa ay kaarar u qaybinayaan dadka danyarta ah ee barakacayaasha si ay ugu qaataan cunno. adiga muuqaalkan daawanaya waxaa laga yaabaa inaad isku diyaarisay Ramadaan oo aad u soo adeegatay gurigaaga balse dadka barakacayaasha ee ku nool degmada Kaxda ma haystaan lacago ay ku soo adeegtaan balse haatan waxay safaf dhaadheer ugu jiraan sidii ay u qaadan lahaayeen cunto oo ay ku moodi karaan bisha Ramadaan. dadkan ayaa loo qeybiyay cunno isugu jirta bariis, sokor, bur iyo saliid si ay afur uga dhigtaan bisha Ramadaan. gudoomiyaha degmada Kaxda Maxamed Yuusuf ayaa Nation Media sharaxaad ka siiyay tirada qoysaska ka faa'iiday raashinka iyo ku filnaashiyahooda. Nation Media aad ma santiin dadweynaha Kaxda raashin yar oo ma sha Allah aad wanaagsan oo laakiin tiradiisu yarta oo 5 kiilo loo keenay ilaa 600 oo qoys oo dadka barakacayaasha oo dadka u baahan ayaa ka faa'iidaystay. waxaan leenahay cid kasta oo ka soo shaqeysay oo ugu horeeyay maamulka gobolka Banaadir jazakumullahu khairan. gudoomiye Umar oo markasta ka shaqeeya dadka danta yar ee tabaalaysan say wax u gaari lahaayeen oo xilligan inaan 600 oo qoys ay wax helaan sababtiisa Ilaahay ka dhigay. waxaan leenahay gudoomiye aad u mahadsan tahay iyo cid kasta oo ka soo shaqeysay dad 600 oo qof ayaa maanta ka faa'iideystay raashinkaas runtii aadayna ugu baahnayeen xilligii ay mudnaydna waliba ku saadeen. dadka barakacayaasha ee ku nool degmada Kaxda iyo degmooyinka kale ee gobolka Banaadir ayaa wajahaya dhibaato nololeed oo ay u dheer tahay kuleelka daran ee ka jira magaalada. deeqda waxaa iska kaashaday bixinteeda Midowga Yurub iyo hay'adda Hassani ee dalka Turkiga. haddaba sidee ayay u arkaan dadka helay raashinkan iyo nolosha ay ku haystaan bacaha iyo cooshadaha ay ku nool yihiin? anigu aamana cali ee walaalahayn Turkada oo Xasan waxa kan asnoo soo dhiibi aan ku mahadiyeena ku shukriyeena walaalahayn Turkada madaxooda kar Allah ka yeel. raashinka haysto ee heshin noocyada waa bur, bariid, baasto, saliid aan ku mahadiyeena ku shukriyeena. bisha Ramadaan waana kaafini alxamdulillah soo iska yar oo arkoohayn ilaa waana kaafinaysa alxamdulillah. soo iska yar oo habeen weyn liyaho waana kaafinay ilaahay wixii soo dhiib Allah noo barakeeyo. dad barakacayaal oo aragday degmada Kurtunwaare ka soo barakayeen sidii uu soo barakaani dhahadan wax mahlin laakiin birigan ilaahay ma hadda u saa iska leh walaalahayn waxaan soo daarsiyeen bariis iyo sokor iyo baasto baaha waa jirtaa mees si uu soo barakaani noo kooway bahashan oo maanta uu qaadanay noo kooway. Ramadaan soo dhow ramadaankan waxa ka soo rabnaa masaakiin nahay hooyo ma qabno darbaaliyaal ma qabno ma aragtay ilaahay marsa jira ina gaanta noo qabado qorraxda oo kulul ka waran iyo meesha ku nooshiin kuleel rafaad dandaran haysato biidoron waa ina haysa tib ma qabno. waxaan la sii baasto waxaan la sii bariis waxaan la sii saliid waxaan la sii bur waxaan la sii sokor muslimkiina siina waa umahad caleynayna ma sha Allah khayr Allah siiyo waxaan ku noolnahay degmada oo Qaxda agteeda kaanka oo iga hor oo rajo wanaag muslimkiina siina Ilaahay khayr Allah siiyo meeshii ka soo bixeen wax khayr qab Allah ugu bedel unukuna Allah noo barakeeyo kasta aad in Ramadaanka gaarsanay inii kala Ilaahay wan ciyaalan qabnaa ciyaal dugsi lahan qabnaa duqooshina noo joogo wax noo kala go'ay ma ehelaakas waa isku barakeysanayna Ilaahay wax badan noo keenay. dunyaan taajon hawtee ma joogta hawtee baadiyaa u baxay ana ka duwijoon raashinka heshay maxay iskugu jiraan noocyada waa baasto saliid bariis. Muqdisho ayaanan ka jirin dhaqdhaqaaq ku aadan in dadka danyarta ah la caawiyo maadaama ay naga xigto Ramadaan wax ka yar 10 maalin. Maxamed Yaxya Jino warbaahinta Nation Muqdisho.